usha ragga inta budka oo kala ahi haddii ay gasho daloolka dumarka shareecadu xishood ma leh waayo waa wax nolosheena khaseeyo weeye sariirta intuu saaray ayuu yidhi waxaan eegayaa farjigaagu fartuu geliyey dabadeedna biyihii baa ka soo baxay manidii saqajaannada gacmahooda isticmaala ayaa qaarkood gacantooda isticmaaloona biyihii iska keeneen fitamiin A iyo calcium labadaa maadaa ku jira biyahan rag iyo dumarka ka soo baxa muslimow dhegayso 6 mas'ala hadday kugu yimaadaan maydh baa lagugu yeelanaya mid ka midi waataan habeenkii dhoweyd idinka warramayey culimmadii xeebta u dhaadhacday ee odayga 70 jirkaa u tagtay ee uga warramaysay baabkan uu yidhi war waxaana la saarkan waxaanay ka sheekaynayaan waa maxay war maanoo ooridaydii xalaasha ahayd u tegey baa waxaad leediin maydh baa kugu waajiba weligayaba annagu culimo kale maanaan maqal galmood baa laga daahirsadaayo waajib kugu ah 70 baan jiraa weligayba kama maydhan hadda waa kii kitaabkii ugu yaraa safiinu sanaadka ayaaba tilmaamaya 6 mas'alo hadday dhacaan way maydhi baa waajiba dhagaha ii fura maydhi baa waajiba kow ilaaju alxashafati fi lfarji usha ragga inta budka oo kala ahi haddii ay gasho daloolka dumarka ee hore intaasi hadday isku libidho iyada iyo isagaba maydhi baa ku waajiba hadday doonto labadooda wax biya'ibayay ka imanin shareecadu xishood ma leh waayo waa wax nolosheena khaseeyo weeye usha raggu inta budka u ega hadday ku libidho daloolka dumarka hadday ku libidho walow biyabayay ka iman labadoodee gelitaankaa ay iskaleen dunta iyo irbaddu waxay waajibisaa maydhi bay waajibisaa wa khuruujulmaniyi qof baa maniyi ka timi ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaadeen way seexdeen way riyoodeen deedna way janaaboodeenoo mani baa ka timi dumarkuna mani way leeyihiin waa tii saxaabiyaddii nebigeennu qaba calayhi salaatu wasalaam umu salama ay afka isqabatay tiri oo dumarku miyay riyoodaanoo biyaa ka yimaada uu nebigu yidhi hakiladka ummuka haa haddaa maxay carruurta uga ekaataa hooyooyinkood mararka qaarkood dumarkuna way ixtilaamaanoo biyo way ka yimaadaan ragguna way ixtilaamaanoo biyo way ka yimaadaan ama kayfiyad kale bay uga timi si kalaa bay uga yimaadeen biyihii maalan gabadhii tusaale ahaan baa dhakhtar u tagtay ayadoo ka cabanaysa intaa macdanta dabadeedna wiil dhakhtarabaa sariirta intuu saaray ayuu yidhi waxaan eegayaa farjigaagu fartuu geliyey dabadeedna biyihii baa ka soo baxay manidii maydh baa lagu leeyahay walow ninbayuu u kalmoonin hadday biyo ka yimaadaan iyay odhanin daahir baa tae waa inay maydh